munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo xuska 11 guurada 18 May ayaa ka qabsoontay caasimadda waddanka Sacuudi Arabiya ee magaalada Riyadh. Munaasabadan oo ay si qurux badan u soo qabanqaabiyeen guddiga jaaliyadda Somaliland ee waddanka Sacuudi Arabiya gaar ahaan magaalada Riyadh ayay ka soo qayb galeen badiba haldoorka jaaliyaddu iyagoona isaga kala yimi qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee Sacuudiga si ay bulshada Somaliland ugala qayb qaataan xuska 18 May oo maalin ciid ah dhammaan bulshada Somaliland meel kasta oo caalamka ka joogaan. Ugu horeyn waxa munaasabada hadallo kooban oo gubaaba ka jeediyay mas'uuliyiinta guddiga jaaliyadda, mujaahidiin ka tirsan ururkii SNM, haweenka jaaliyadda, abwaano iyo marti sharafti kale ee ka soo qayb gashay munaasabada. Allahi barakaatu. Marka labaad waxaan u hambalyeeynaa dhammaan shacabka reer Somaliland ee daafaha dunida meel walba ka dabaaldegaya oo leeyahay hambaliyo. Marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyarta soo qabanqaabisay xafladan ay soo keentay halkeen ay noo qabsatay xafladu oo iyagana waxaan yiri qurbi oo waqtigiin caawo xafladan isugu farxad ay leedahay haddii aad dalkiina joogtaan ka fara badan ayay lahayd telefooda ayay dowladdu mar walba wadaa وقاسة وحواتان إنها وحوات الدكان كرناهين لكن إن شاء الله وصلنا كاسم الفيسة وحن يمير الشيئية يا سفرة علينا أكاد يقول في المرضو وشعلين عليهم كتبا نتانتي نلو ينتي نشوف تابع هذين كبار الزمان مريا نسي أنوه ليها كبيرو صنعي كبير سنتي مقالي مقالي صحيح في دولة جبل كل اسم برعو يوحي صنعي ما تعرف المرة ده ضروري كلمة تكسبيه هاي درت يلا تعرف تستاهل وحكوا صور عاقين الليلة إن هذه تاريخ دولة كان لبني يتركي ما يكون يسقال بقولين لحنكي وحي هاي مالنتي وفد في Somaliland وتجد إنجليزكا أو صوص حرية المدنية اللي حين بتكتشون تسوى لمدينة يلو يديكو دينكو دبوهم وحكلاين هالك نسكون معنا إن أسوسينو وإنتين هان وقت كان جوجين ين كلامه أينو براروجينو ونشأنا وكذا صورة ujeedada saddexaad halkan isku nimaadnaa waxa weeye inaynu garbaha ka taagnaano oo inay dib inooga noqon xornimadaas ay dad badan ku soo dhinteen. Jaaliyadda Somaliland ee ku nool gobollada kala duwan ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sanad kasta qabsada munaasabado waaweyn oo ay ugu dabaaldegaan xusaska maalmaha qaranka iyagoona kaalin weyn oo aan la ilaabi karin kaga suntana halgankii xoreynta Somaliland ee jabhaddii SNM taasi oo ay Maaliyo noolba la garab taagnaayeen xilliyadii qaraadha ee ay Somaliland soo martay. Isku soo wada duuba munaasabada ayaa ku soo dhamaatay jawi qurux badan taasi oo bulshadu ka soo qayb gashay wajiyadooda laga dheehanayay sida ay mabsuudka ugu yihiin inay kala qayb qaataan bulshada Somaliland 18 May xuska maalinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee 2022 taasi oo maanta laga joogo 30 sano sanadkii 1991 maalintii ay Somaliland ku dhawaaqday inay gabi ahaanba ka gooday isla markaasina ay madax bannaanideedii kala soo noqotay dawladdii la oran jiray Soomaaliya. Wadaahir Suldaan, Riyadh.